madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kol hore ku dhawaaqay dagaal adag uu la gelayo argagixisada dalka ka dagaalamaysa baaq ayuu u diray bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa taa oo ku aadanayd inay ku garabsiyaan dagaalkaas furimaha dagaalka waxa isugu tagay bulsho badan oo dawladooda ku gacan siinaya dagaalka qawaarijta kuwa oo qaarkood naftooda ku waayay madaxweynuhu waxa uu bilaabay in uu la kulmo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa isaga oo u sheegaya in looga baahan yahay garabkooda la xiriira dagaalka qawaarijta lagula jiro kulan madaxweynuhu uu kula yeeshay qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed dalka Talyaaniga ayaa waxa uu kaga dhawaaqay in qof kasta oo Soomaaliyeed looga baahan yahay in $1 uu uga qayb qaato difaaca dalkiisa Yusuf Madaare gudoomiyaha gobolka $1 dalkaaga ku dhiso mashruuc keenay mashruuc hadda waxa loo bedelay $1 dalkaaga ku daafac أنا هذا الوقت كذا واجي صرت هل بام هذا سجين أيضا إنجليز كتب بام كيف تقالنا هل بام هذا سجين واساس هل بام وحاليا با وحس كسهل أن يبصر وحياة هو اللي هو رقيسا إنه يبصر على غيره ما صدق ما صدق هل بام هل يورو هل $1 وحاليا با وحياة با هو جوان إنه يبصر لكن أنت فضل بقول هل بسودر هل بمياه وأنت أدي هذا بدل ملايين تصومالي ده مركز الجبت ممكن يسودر تنا وملايين وحبايب ترعان وحوين هل أنا هذا واد بحي أم بحي كرام ما هل بام وحبو ترى وجو هاي السنة أنا مسؤول إن شاء الله تعالى فهم محمد عمر oo kamid ahayd qurba joogtii madaxweynaha uu la kulmay halkaana kaga dhawaaqday inay dhiibi doonto $1 iyo ka badan ayaa waxaan kula xiriirnay qadka telefoonka waxaanan weydiinay dareenkeeda la xiriira ka qayb qaadashada dagaalka dalka looga xureynayo qawaarijta waxaan ahay qofkii ugu horeeyay ee qurba joogta ah inaan ahay qofkii ugu horeeyay oo ka jawaabay madaxweynaha baaqiisa ahaa dalkaaga dib ugu xoree uuna deeq $1 وسببت أنا أقول دقيقة واحد أركز صدق سنة 10 سنة وأقول دم بيسي دلكني إني أرجع إنسانو يبقى يأد عن وهيسي تدك شعب كأه مساكين تا حولها دقتها باديها كنا أي حوله دي نافق وجودنا أي كدي لنا يان تدك عشور أي كقاعدة يان لبدنا دل لوجسي دريو تاس أوجد أيان كدم قضيش إن دلكني ومانته ودي سنة هاي كوح أرجع إنسان oo ku ah dhibaato iyo aad weyn anaga kaliya maan adduunka oo dhan ku ah in aan ka jawaabo si dalkan iyo dadkan ay xorriyad u helaan aan adduunyada ula jaan qaadno qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed oo iyana ka hadlay dagaalka dalka looga xureynayo qawaarijta argagixisada ah ayaa iyana sheegay inay kaalintooda ka qaadanayaan culimadu waxay si buuxda u taageerayaan dagaalka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed kula jiraan kooxda qawaarijta ah الشباب مدحوين وحرب أنا كارد الدارمو هاوشان عذاب بالله خوارج إن العرب ترى عذاب بالله مسكح راس يفكر داس عليه كاسو ما حتى عد كل الله يدملها مدحوين وحن كاربه إن آذن دب آذن ونقنين حسنوا أو آد سري آد بلنت وقاضي آد أفلسه وضنا هتسنتهين واردي كنت تاجرينا واردي قرب تاجرنا هاي هاوش هاس مركب وحنا ندب لوجا نقنين dhowrkii bilood hadda aad joogtay adiga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda waxaad ku guuleysateen Hirshabeelle iyo Galmudug inteeda badan inaad ka xoreysaan al-shabaab codsiganagu waxa weeye 6 bilood soo socota in Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo Banaadir ba laga xoreeyo al-shabaab aad waxaan ula dhacsanahay inaad cadaalad tagtay hobyo tagtay hiiraan tagtay مسجد علي قدود تكتي أديك أو توتها قبة ما شربت قفتي شعب كهذا نسكده كشيء كلسوني زائدة مركب أنا وحرب ملاحظ إن علماء كقات أبروفلا إن الغب هي مدحوين مجاهد madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Soomaaliya uu ka dhigo dal ka caagan argagixisada si wadamada dunida dalka uu la qaybsado horumarada ay ku tilaabsanayaan